halkani waa BBC oo idinkala hadlaysa mawjadaha gaagaaban efemada magaalooyinka qaar iyo barteena internetka bbcsomali.com. subax wanaagsan akhyaaray waa jimcaha 12 January 2021 saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 7 subaxnimo. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadeena subaxnimo waxaa ka mid ah qareenada Trump oo maanta soo bandhigayo qodobada ay ku difaacayaan kiisaska cusub ee viruska corona oo dib ugu soo laba kacleeyay Soomaaliya. way muuqataa hadda inuu jiro dib u laba kacleyn oo xanuunka COVID-19 gaar ahaan magaalooyinka waaweyn sida caasimadaha waxayna arrintaas ka muuqataa bukaanada la soo ildarnaanaya xanuunkan ee la keenayo isbitaalada. Soomaalida oo yeelanayso tirsi cusub oo maalmaha toddobaadka maalmaha cusub ee afka Soomaaliga la isku raacay il ansixiyay waa cadceeda oo axadii ah, hobala oo isniintii ah, wobley oo salaasadii ah, dabara oo arbacadii ah, dabayley oo khamiistii ah, dusa oo jimcihii ah, diimaley oo sabtidii ah. wiilka ugu daada yaraa oo Soomaali ah oo magaalada Edmonton musharaxnimo isu soo taagay iyo qodobo kale. barnaamijkani waxaa soo saaray Xasan Cali Geelaan oo Cabdiraxmaan Xaaji Cabdoon la socodsiinaya. subax wanaagsan akhyaari. qodobadaasi oo faahfaahsan ay noo dambeeyaan marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii idaacadda waxaana u diyaara Axmed Badar. maasanid Cabdiraxmaan Xaaji Cadow. madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa waxa uu sheegay inuu amray talaal badan si qof waliba oo Mareykan ah looga talaalo fayraska corona. Mr. Biden ayaa ku eedeeyay madaxweynihii isaga ka horeeyay Donald Trump inuusan shaqadiisa qabsan isla markaana uu ka dhaxlay barnaamij talaal oo aan loo markaasi ahayn sidii loo baahnaa. madaxweynaha ayaa imika amray talaal dhan 100 milyan oo doos oo talaalka shirkadaha Pfizer iyo waliba Moderna. xubnaha xisbiga dimuqraadiyiinta ee dalka Mareykanka ayaa waxay ugu baaqeen senatarada in ay ku cadeeyaan Trump inuu dambi galay oo ah kaasi oo ah kicinta dadweynaha iyagoo ka digeen haddii aan lagu cadeyn in dambigaasi uu galay ay dhici karto weerar lamida kii lagu qaaday aqalka Koongareeska. xubnaha gacanta ku haya dacwadda Trump ayaa ku dooday in madaxweynihii hore uu si ulakac ah u dhiirigeliyay weerarkii lagu qaaday dhismaha Koongareeska. haddii Mr. Trump lagu helo dacwadaha lagu soo ogay waxaa laga mamnuuci karaa in mar kale uu xilka madaxweynenimada u tartamo. dowladda Shiinaha ayaa mamnuucday BBC-da qaybta dibadaha la hadashay inay ka howlgasho dalkaasi waxaana sidaasi shaacisay adda u qaabilsan dhanka telefishinada iyo idaacadaha. xukuumadda Shiinaha ayaa cambaaraysay BBC-da qaabka ay u tabisay wararka la xiriira fayraska corona iyo dhibaatada lagu hayo muslimiinta laga tirada badan yahay ee wigaha. madaxda BBC-da ayaa dhankooda sheegay in go'aankaasi uu yahay mid laga xumaado. madaxweynaha dalka Koonfur Afrika ayaa ka hadlay sida ay uga go'an tahay inuu ka shaqeeyo sidii dalkaasi uga soo kaban lahaa fayraska corona isla markaana loo xalin lahaa dhibaatooyinka dhaqaale ee ka dhashay. khudbad uu telefishinka ka jeediyay ayaa Cyril Ramaphosa waxa uu shaaca ka qaaday in fayraska corona dalkaasi ay uga dhinteen in ka badan 47,000 oo qof isla markaana ay ku shaqo waayeen ku dhawaad 2 milyan. waxa uu sidoo kale madaxweynaha Koonfur Afrika sheegay in dalkaasi laga bilaabi doono talaalka fayraska corona. ugu dambeynna xukuumadda Haiti ayaa sii deysay garsoore ka tirsan maxkamadda ugu sarreysa dalkaasi oo horey lagu eedeeyay in uu ka qayb qaatay afgembi dhicisoobay oo lagu doonayay in xukunka laga tuuro madaxweyne Jovenel Moise. waxa uu garsoorahani lagu magacaabo Dibasila uu ka mid ahaa in ka badan 20 qof oo xabsiga loo taxaabay toddobaadkan kadib markii ay wadooyinka isugu soo baxeen kumanaan qof oo dalbanaya in madaxweynaha xilka uu ka dago. Cadow aad buu u mahadsan yahay Axmed Badar oo warkii idaacadda subaxnimo la socodsiinay. halkaad kala socoteen waa BBC. waa hagaaga dhegeystayaal waxaad ka raalli ahaataan halka aan January 2021 waa Febraayo almaan hadal kuma jiro. haddii wararkii aynu u gudubno qareenada Donald Trump ayaa la filayaa inay maanta aqalka sare u soo bandhigaan difaacooda ku aadan dacwadda ka dhanka ah madaxweynihii hore ee dalkaasi Mareykanka. dacwad-oogayaasha kiiska loo xilsaaray ayaa kiiskani maalintii shalay ahayd soo gabagabeeyay iyaga oo ku doodayay in Mr. Trump taageerayaashiisa uu ku booriyay in ay weeraraan dhismaha Capitol bishii hore.
maariyaha aqalka koongareska wuxuu sheegay inuu muujiyey taageero rabsho marna uu dhacdadaasi wax qoomamo ah ama cudurdaara uusan ka bixinin. warbixinta wariyaha washington ooga soo waramo lebo diseko uu soo diray waxaa soo jeedinaya xasan cali geele. xildhibaanada xisbiga dimuqraadiga ayaa waxa ay ku doodayaan in Donald Trump taariikhaan lagu yaqaano in taageerayaashiisa uu ku dhiirigeliyo inay geystaan falal dambi ah oo rabshado wata. waxa ay sheegeen in kooxihii dibadbaxyada dhigayay ee qabsaday aqalka koongareeska la rumaysan yahay inay amar ka qaadanayeen Donald Trump. xildhibaanadan ayaa waxa ay sheegeen in haddii Donald Trump aanan haatan dambi lagu helin ay noqonayso in mar kale uu galo dambigaasi. doodooda ayaa waxay ahayd mid loogu talagalay dadweynaha, iyadoo xildhibaanada aqalka senatka ee dalkaasina ay taagan yihiin booska garsoorka. xildhibaanada xisbiga dimuqraadiga ah ee dacwadda ku soo oogay Donald Trump ayaa waxa ay u baahanayaan ilaa iyo 17 xildhibaan oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga si ugu dambeyntii dambi loogu helo Donald Trump. hase yeeshee marka la fiiriyo sida ay haatan wax u socdaan, xaaladdu sida ay ka duwan tahay oo ilaa 6 xildhibaan oo kaliya ayaa haatan la saftay xisbiga dimuqraadiga. garyaqaan u doodaya Donald Trump ayaa waxa uu sheegay in maanta galinka dambe uu u baahan yahay qiyaastii 4 saacadood si uu u difaaco Donald Trump. David Scoin ayaa diiday inuu shaaciyo waxa ay kooxdiisa u cuskan doonaan doodooda. hase yeeshee waxa uu xildhibaanada xisbiga dimuqraadiga ku eedeeyay munaafaqnimo. waxa uuna sheegay in doodooda ay tahay mid aan sal iyo raad lahayn, isla markaana wax cadayna aan loo haynin. xasan cali geele aad buu u mahadsan yahay. dhinaca dhegeystayaasheena fikirkooda facebooka nagu soo gaarsiiyey haddii aynu jaleecno. faarax maxamuud caydiid oo jooga hargeysa waxa uu yidhi qareenada u doodaya madaxweynihii hore maraykanka Donald Trump ee maanta soo bandhigaya qodobada ay ku difaacayaan ilama aha buu yidhi kuwa wax badan soo kordhinaya, sababtoo ah Trump waxaa loo haystaa buu yidhi maamul xumada iyo dhibaatooyinkii dhacay amintii uu xilka ka hayay, taasi oo caalamka oo dhan ay isha ku hayay. mahadsanidin buu yidhi. cabdi xareed maxamed haaruun oo jooga luuq ganaane waxa uu yidhi qareenada madaxweynihii hore ee Trump isla markaana maanta soo bandhigayo qodobo ay ku difaacayaan runtii waxaan u arkaa mid aan waxba soo kordhin doonin. Trump wuxuu ku takrifalay sharciga xilliga uu aqalka cad ka arriminaya, waxaase muhiim ah in sharciga la hor keeno si loo mariyo cadaaladda. waa fikirkii dhegeystayaasheena ay facebooka noo soo mariyeen. markana Soomaaliya, dalka Soomaaliya waxaa laga soo sheegayaa koror ku yimid kiisaska fayraska corona. wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalk ayaa sheegtay in 3 maalmood ee lasoo dhaafay Soomaaliya ay xaqiijisay 123 kiis oo cusub. kiisaskaasi oo intooda badan laga helay magaalada Muqdisho. tiradan ayaa noqonaysa tiradii ugu badnayd ee kiisaska fayraska corona oo la diiwaan geliyo tan iyo sanadkii lasoo dhaafay. arrintani ayaana ku soo beegmaysa xilli la filayo tallaalka COVID-19 in bishan dalka Soomaaliya uu soo gaadho. wariyahana magaalada Muqdisho beel la sheego ayaa warbixintan magaalada Muqdisho nooga soo dirtay. horaantii toddobaadkan wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka ayaa sheegtay in koror uu ku yimid kiisaska cusub ee diiwaan gelisay ee COVID-19. waa arin walwal leh, laakiin badi bulshada Soomaaliyeed kuma baraarugsana khatarta uu leeyahay xanuunkan. Muqdisho iyo guud ahaanba Soomaaliya ma jiro wax ka hortag ah oo ay bulshadu sameynayso, sida in la sameeyo kala fogaanshiyo bulsho, afxirasho, iyo in haddii uu qofku ku dhaco xanuunka ama iska shakiyo uu iskarantiilo. jacfar maxamed oo ku nool magaalada Muqdisho ayaa ii waramay, wuxuuna ii sheegay in qaar badan oo ka mid ah asxaabtiisa iyo dadka uu garanayo uu ku dhacay xanuun calaamadaha hargabka ah oo kala leh, uuna si guud magaalada hargabkaasi uga jiro. maalmahan magaalada waxaa ku soo badanayay hargab xun oo wata astaamo aan hore loo arkin, sida qandho saa'id ah iyo qofka uu ku dhaco oo cuntada ka sooma ama aan qaadan karin. dad badan oo saaxiibaday ah ama aanu shaqo wadaagnahay iyo cudurkan haleelay waxaana ay la jiifeen dhowr maalmood. welina magaalada waa uu ka jiraa. bulshada waa isku dhex milan tahay, sidoo kale ma jiro afxirashadii iyo dadaaladii kale ee maaska afka iyo wejiga lagu xiran jiray oo bulshadu si caadi ah ay ku soo noqdeen. COVID-19 ayaa adduunka oo dhan mar kale ku soo laba kaclayay. suurtagalnimada inuu Soomaaliya mar labaad uu si xawli ah ugu faafana waa mid jirta. hase yeeshee Dr. Cusmaan Cabdi Cali oo ka mid ah dhaqaatiirta ka howlgasha magaalada Muqdisho ayaa iiga waramay khatarta ka dhalan karta fayraska hadduu magaalada ku sii faafo. way muuqataa hadda inuu jiro dib u laba kaclayn oo xanuunka COVID-19 gaar ahaan magaalooyinka waaweyn sida caasimadaha. waxayna arrintaas ka muuqataa bukaanada lasoo ildarnaanaya xanuunkan ee la keenayo isbitaalada. nambarka baaritaanada laga sameeyay bukaanada ay sameeyeen shaybaarada waaweyn, taasoo tusinaysa in dad badan oo mataqaanaa xanuunka qaba inay sheegeen oo ka jawaabo badan oo positive ay soo baxeen. taas ayaa waxay ka dhigaysaa in loo arko inay jiraan dib u laba kacleen xanuunka ah. iyadoo isa soo taraysa cabsida laga qabo in uu mar labaad COVID-19 uu ku faafo Soomaaliya, ayaa haddana adduunku wuxuu uga hortagayaa xanuunka in dadka la siiyo tallaal.
tallaal su-aasha ayaa waxay tahay soomaalidu ma yihiin kuwa aqbali doona in ay qaataan tallaalka covid-19 iyadoo la filayay in WHO ay bishan gudaheeda dafcadda koowaad ee tallaalka ay keenaan dalka. Hanikate Xasan oo ka mid ah ardayda jaamacadaha wax ka barta ee magaalada Muqdisho ayaa ii sheegtay in sida kaliya ee looga hortagi karo fayraska uu yahay in bulshada la siiyo wacyigelin tallaalkana ay qaataan. tallaalka covid-19 ee la keenay Soomaaliya aad baan soo dhaweynaya waayo waxa soo laba ka calay covid-19 oo adduunkii mar labaad ku soo laba ka calay in yaro difaaca jirkaagu haysto way ka wanaagsan tahay jirkaaga bilaa difaaca hore Soomaaliya u tirna ka hortaga ka wanaagsan daweynta marka waxaan ku baaqi lahaa inta aan la keenin ka hor in wacyigelin loo sameeyo ummadda Soomaaliyeed waliba khaas ahaan dumarka oo warsuuqeed ka soo horeeyay tallaalka la leeyahay ma dhaleysaan waxyeelo badan gaarsiinaya marka wacyigelin hala sameeyo kadibna hala keeno covid-19 tallaalkiisa. inkastoo hani ay qabto in tallaalka la qaato si looga hortago fayraska haddana qaar badan oo ka mid ah bulshada Soomaaliyeed ma aaminsana tallaalka iyo tayadiisa oo shaki badan ayaa uga jira. Soomaaliya waxay hadda dhexda uga jirtaa xaalad siyaasadeed oo aad u cakiran haddana waxaa muuqata in khatarta fayraska corona ay aad u sii kacayso waxaana yaraaday wacyigelinta ay bixin jirtay dowladda mana jiraan wax tallaabooyin ah oo fayraska looga hortagayo ama lagu yareynayo hadda. Beela Sheego, BBC Muqdisho. wariyaheenna magaalada Muqdisho Beela Sheego oo warbixintaasi inoo soo dirtay aad bay u mahadsan tahay. halkaad nagala socotaana waa BBC. BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. waa hagaag dhegeystayaal warbixino ku saabsan Soomaalida iyo gobolkaba ayaa nagu soo socday markaana Koonfur Afrika. madaxweynaha dalka Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa oo shacabka dalkaasi la hadlay ayaa soo bandhigay qorshaha dawladda. madaxweynaha oo soo bandhigay qorshe sanadeedka dawladda wuxuu sheegay dawladdu in ay qorshaheedani sanadka ah inay diiradda ku saari doonto tallaalka fayraska corona sidii shacabka loo gaarsiin lahaa kobaca dhaqaalaha tamarta iyo arrimaha la xidhiidha isbeddelka cimilada. wariyaha BBC uga soo waranta Koonfur Afrika Pumza Fihlani warbixinta soo dirtay waxaa soo jeedinaya Axmed Badar. dalka Koonfur Afrika waa dal uu dhibaato ku hayo fayraska corona halkaasi cudurka ay ugu dhinteen in ka badan 47,000 oo qof isla markaana waxa muddo sanad ka yar shaqooyinkooda waayay 2 milyan oo qof. madaxweyne Cyril Ramaphosa ayaa khudbad uu ka jeediyay telefishinka waxa uu sheegay in dawladda ay soo wajahday shaqo aan caadi ahayn oo ah in isku dayayso in ay deganaansho keento iyadoo markaasi xilli adag lagu jiro. waxa uu intaa ku daray in mudnaanta koowaad ay tahay in laga adkaado fayraska corona iyadoo loo sii marayo ololaha tallaalka lagu wada in dalkaasi laga bilaabo toddobaadyada soo socda. mudnaanta kale ayuu sheegay madaxweynaha inay tahay in la kobciyo dhaqaalaha dalkaasi iyadoo la abuurayo shaqooyin lana dagaalamayo musuqmaasuqa baahsan ee dhaqaalaha wiiqay balse taasi ma aha ballanqaad cusub. sida ay sheegeen dadka falanqeeya siyaasadda Koonfur Afrika shacabka dalkaasi ayaa waxay doonayaan in tallaabooyin la qaado. khubarada ayaa sidoo kale waxay sheegeen in Mr. Ramaphosa looga baahan yahay in uu qaato go'aan adag iyadoo xitaa laga yaabo in arrintan ay saameyn ku yeelato shacbiyadda uu ku dhex leeyahay xisbiga ANC. dalka Koonfur Afrika ayaa ah dalka sida baan u saameeyay fayraska corona marka loo barbardhigo dalalka kale ee qaaradda Afrika. Axmed Badal oo warbixintan la socodsiinaya aad buu mahadsan yahay. wiilkii ugu da'da yaraa oo Soomaali ah oo ku dhashay dalka Canada ayaa musharaxnimo isu soo taagay magaalada Edmonton ee dalkaasi. wiilka Soomaaliga ee musharaxnimada isu soo taagay lagu magacaabo Haroon Jibriil Cali xilliga doorashada ay dhacayso waxa uu buuxsamaysaa da'da 18 jir. haddii uu doorashada ku guuleystana wuxuu noqonayaa wiilkii ugu horreeyay oo madow ah oo magaalada Edmonton ee dalka Canada laga soo doorto. warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariye Duraan Xasan Yare. Haroon Jibriil Cali oo ah 17 sano jir Soomaali Canadian ah ayaa u tartamaya doorashada golaha deegaanka ee degmada Baabasteeye ee magaalada Edmonton ee gobolka Alberta. sharciga doorashooyinka dowlad goboleedka Alberta ayaa dhigaya in da'da musharaxa tartamaya tahay 18 sano ka hor inta uusan dhammaan waqtiga isu soo sharaxida kaas oo ku eeg 20 bisha September ee sanadkan. balse Haroon ayaa bisha Abriil noqonaya 18 sano jir taasoo u saamaxaysa inuu ka qayb qaato doorashada.
17 sano jirkan oo ku dhashay kuna barbaaray magaalada Edmonton ayaa BBC-da u sheegay in sababta ku kaliftay inuu u tartamo xilkan ay tahay in dadka madow ee ku nool magaaladan iyo dhalinyaradu aysan haysan matalaad siyaasadeed sidaa darteedna uu doonayo in dadka madow ay matalaad ku yeeshaan aqalka looga arrimiyo magaalada. Haarun oo cilmiga siyaasadda iyo arrimaha bulshada ka barta jaamacadda Victoria ayaa jeclaa siyaasadda isagoo sanooyinkii dambe soo taakuleynayay siyaasiyiinta heer federaal iyo kuwa dowlad goboleed sida uu BBC-da u sheegay aabaha Haarun Jibriil Cali oo asaga laftigiisu qayb ka ah ololaha doorashada wiilkiisa. waxaa maanta farxad inoo ah in wiil ka mid ah wiilasheena Soomaaliyeed kaasoo ah wiilkayga oo lagu magacaabo Haarun uu istaagay inuu u tartamo xilka gudoomiyaha degmada Babasteyo ee magaalada Edmonton. Haarun wuxuu in muddo aaba jeclaa siyaasadda taasoo keentay inuu sanado taakuleynaya siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolka Alberta hadday noqon lahayd kuwa heer gobol iyo heer federaal labadaba. Haarun haddii uu ku guuleysto wuxuu rabaa inuu u ololeeyo gaadiid lacag la'aan ah oo loo ogolaado dhalinyarada da'diisa ah iyo inuu wax ka bedelo kaabayaasha dhaqaalaha oo la hagaajiyo dayactirka buundooyinka iyo wadooyinka. wuxuu kaloo rabaa inuu kor u qaado bilicda degmada Babasteyo ee uu xilka ka raadinayo. wuxuu kaloo rabaa inuu hagaajiyo xiriirka ka dhaxeeya dadka dhalinyarada ay dadka waayeelka ah. wuxuu ku dayasho u noqon doonaa dhalinyarada da'diisa ah gaar ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed oo aan lagu baran hamin noocan ah. waa markii ugu horeysay oo qof da'daas u istaago xilka magaalada Edmonton. haddii uu ku guuleystana wuxuu noqon doonaa qofkii ugu horeeyay oo madow ah oo loo doorto magaalada Edmonton sida uu mar kale BBC-da u sheegay Jibriil Cali oo Canada ku noolaa in ka badan 30 sano. waa markii ugu horeysay oo wiil da'daas jira uu istaago xilka magaalada Edmonton. haddii uu ku guuleysto wuxuu noqon doonaa qofkii ugu horeeyay ee ka soo jeeda dadka madow oo xil ka qabta magaalada Edmonton. Haarun ayaa sheegay haddii la doorto inuu ka shaqayn doono arrimaha horumarinta dhalinyarada gaar ahaan dhalinyarada Soomaalida si ay uga baxaan xaaladaha adag ay wajahayaan. dhanka kale Deeqa Maxamuud oo ka shaqaysa arrimaha horumarinta bulshada ayaa sheegtay in ay tahay wax lagu farxo in dhalinyarada Soomaalidu ka qayb qaadanayaan loolanka dhanka siyaasadda ee dalka Canada iyadoo ay jireen dhibaatooyin soo laabtay oo dhanka dhalinyarada ah. runtii waa wax aad iyo aad loogu farxo in aan aragno dhalinyar ka qayb qaadanayso siyaasadda wadanka Canada sababtoo anagu wadankan 30 sano iyo wax ka badan baan joognaa. marka ina codkeenu oo maaragtay meel dheer gaaro oo codkeenu uu qayb ka qaato isbedelka wadanka ka dhacayo waa muhiim. ummadda Soomaaliyeed aan wadankan dhibaatooyin soo laabtay oo waxa jiro dhinaca dhalinyarada aan ka haysano waxa soo miiran waxay runtii ku istaagi karaan ama wax looga bedeli karaa annagoo codkeeni shaqeeyo. Edmonton oo lagu sheego magaalada labaad ee ay ugu badan yihiin Soomaalidu marka laga yimaado Toronto ayaa hadda isu diyaarinaysa doorashada golaha deegaanka oo la filayo inay dhacdo dabayaaqada sanadkan. waxaana arrintan ku soo aadaysaa iyadoo Soomaalida ku nool magaaladan ay waayadan dhagahooda ku soo dhacayeen dhibaatooyin dhanka dhalinyarada balse dad badan ayaa hadda aaminsan in tartanka Haarun uu tallaabo ku dayasho mudan u noqon doono mustaqbalka dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Canada. Duraan Xasan Yare aad buu u mahadsan yahay. halkan nagala socotaana waa BBC. guddi la soo xulay oo kala socday dhulka Soomaalida ayaa soo saaray kaltirsi cusub oo ay Soomaalidu leedahay kaasi oo ka kooban 7 maalmood toddobaadkii iyo waliba 12 bilood ee sanadka. haddaba Ibraahim Axmed Cali oo kamid ahaa guddigaasi ayaa wariyay Maxamuud Cusmaan Bulxan uga waramay kaltirsigan cusub ee ay soo saareen waxa uu yahay iyo sida uu ku yimid. markaad guddigu waxay ka doodaysay kolka hore 7 ayaamood guddigan oo ka kala imatay dhammaan deegaanada Soomaalida ama shanta Soomaaliyeed sida gumaysigu uu u baxshay. kolkii u horeysay waxa laga dooday oo la garfooyay 7 ayaamood magacdooda. waxa la soo bandhigay ilaa wax ka badan 30 siyood oo 7 ayaamood loogu kala dhawaaqo oo loo kala yaqaano oo ay kamid yihiin ta ugu caansan ee in kala tirsada ee Islaamka Carabta afka Carabta ka soo jeeday Axad Isniin
samayn daraase arbaca odhanaysa. tirsiga Soomaalidu inta Axad iyo Isniin iyo arrimahan ay soo bixin waxaa loo tirsan jiray koobin 2 iyo 3 marka dad badan oo Soomaaliyeed taas bay yaqaanaan tan sidee baaritaan ugu samaysan una soo bandhigteen. taasi waxay ka mid tahay dad badan oo Soomaaliyeed ma wada yaqaanaan qayb ka mid ah ummadda unba taqaano waxaan ku oray 29 siyood ayaa la soo bandhigay oo taasi ka mid tahay kuwa kale oo fara badan oo qoraalka ku jirta ayaa la soo bandhigay oo aad u fara badan hase haatee waxaas ku dhan waxaad markaa daraasaad lagu gaaray imika la qaatay iyo go'aankii noqotay oo noqonaysa oo sal ay u yihiin 7 meere guddi halkan isugu timiday way ka doodeen ugu dambeynna way ansixiyeen bal taariikhda cusub ee afka Soomaaliga la isku raacay bal noo faahfaahi oo noo sheeg maalmaha cusub ee afka Soomaaliga la isku raacay il ansixiyay waa cadceeda oo Axadi ah hobala oo Isniintii ah wobley oo Salaasadii ah dabbara oo Arbacadii ah dabaylay oo Khamiistii ah dusa oo Jimcihii ah diimalay oo Sabtidii ah 7 ayaamood sidaaba la isku raacay oo la ansixiyay dood dheer ka bacdi oo dhowr cisho socotay marka waa 7 cisho ee afka Soomaaliga lagu ansixiyay ee maalmaha lagu tirsan doono heeditoore ka bacdi waxa laga dooday 12 bilood ayaa laga dooday gudidu way ansixisay oo waa la isku raacay 12 bilood way awal wax la tirsan jiray bilaha Carabiga iyo bilaha Faransiiska ama bilaha Faransiiska ama bilaha Talyaaniga ama bilaha Ingiriiska baa la tirsanayay kolka bilaha Soomaali leedahay alcaada sal ku leh ayaa la isku raacay marka sidee loo xoojin karaa loogana dhicin kara dadka in la isku raacay 7 maalmood iyo 12 bilood oo af Soomaali ku qoran halkees lagu xoojin karaa gudidu waxay ku dul akhriday 22 jaamacadood oo u yimiday oo jaamacadda Djibouti ay tahay 22aad oo u yimiday xuskii 20 jirka jaamacadda Djibouti kolka waxyaalaha la go'aansaday ee jaamacadda Djibouti ay go'aansatay iyo kamid ahayd in ay soo saarto 20 jirkeyga kaltirsi iyo bila Soomaali leedahay gudiyaal degmooyinka Soomaalida ku dhan way u wada yeedhay kadib shirkaas waxa loo bandhigay jaamacadaha Soomaalida ee geeska Afrika ka jira oo dhan ee Soomaalidu lahayd afka Soomaaliga madaxda dadka Soomaalidu ma afka doonaan ba ku baxaan ayaa loo bandhigay iyaguna arinta way ansixiyeen kolka qolo waliba halkeyga inay ka faafiso marka waxay noqonaysaa in iyaguna jaamacadooda ay kula laabtaan oo dhalinyarada iyo ardayda Soomaaliyeed ee jaamacadaha wax ka barta loo sheego oo halkaas halka loogu jeceliyo gudigana waxa ma aragtay loo xil saaray in ay qaadato hawl ballaaran oo ololo ah inaguna ina wacyigelintiina qaybtiina qaadatiin oo de maxaan ku raadayay faafisiin annagana waxaan noo xil saaray inaan soo marno dhulka Soomaalida ku dhan oo wacyigelin aan gelino dadkii Muqdisho ka yimid inay koonfurta ka kuwii Burca ka yimid saasoo kale iyo Hargeysa ka yimid kuwii Jigjiga ka yimid saasoo kale annaga oo Djibouti joogna saasoo kale in dhammaan aan isla soconno amarada waa la walisiyay waana wada qaateen kaasi wuxuu ahaa Ibraahim Axmed oo kamid ah gudiga soo saaray kaltirsiga cusub ee Soomaalida ee ku kulmay magaalada Djibouti wuxuu u waramayay wariye Maxamuud Cusmaan Abulxan dhageystayaasheena fikirkooda ka soo dhiibtay qodobkani hadii aynu jaleecno Xamda Muuse Saalax oo joogta baran waxay tiri waxaan soo dhaweynayaa in Soomaalidu yeelato tirsi maalmo cusub taasi waxayna muujinaysaa afkii Soomaaliga in dib loo soo nooleynayo magacyada maalmaha loo yaqiinayna dib loo isticmaalayo taasi waxay wax badan ku kordhin doontaa dhalintani dambe ee ku dhax koray afkooda oo kalmada qalaad lagu soo dhaxtaray waana talaabo wanaagsan oo jiilasha dambe anfici doono fikirka ka duwan waxa qaba Mustafa Umar Cabdi oo cadaada ka soo qoray waxa uu leeyahay Soomaalida yeelanayso tirsiga maalmaha runtii waa arrin wanaagsan balse ilama ahan in ay dadka Soomaaliyeed isticmaalayaan tirsigaasi maadaama ay la qabsadeen kalendarka ama tirsiga dunida ay isticmaasho mahadsanidin BBC waa fikirka dhageystayaasheena maanta oo Jimco ah waxaa laga joogaa 100 maalmood tani iyo markii uu bilowday dagaalkii waqooyiga dalka Itoobiya deegaanka ku yaala ee Tigray dowladda Itoobiya 3 toddobaad ka hor waxay ku dhawaaqday inay dagaalka ku guuleysatay gacantana ay ku dhigtay caasimadda deegaanka Tigray ee Maqale magaaladana ay ka eriyeen hogaankii jabhadda xureynta shacabka Tigray ee TPLF waxaana deegaankaasi wali laga dareemayaa saameynta dagaalka uu ka tagay wariyaha BBC Kalkidan Niveltal ayaa noo soo diray warbixin ku saabsan saameynta dagaalka uu yeeshay waxaana soo jeedinaysaa Samir Abdullahi Jaamac
halkan Addis Ababa noloshu waxay u muuqataa inay si wanaagsan ku socoto sida caadiga ahba boqolaal mayl ayay ka fog tahay gobolka ay dagaalada hareeyeen ee Tigreega magaalada caasimadda Itoobiya ee mashquulka badan waxay u muuqataa inaysan saameyn soo gaarin nabad ayaana ka jirta balse dad badan oo asxaab ama ehel ay ka jiraan gobolka Tigreega cabsidoodu waxay noqotay mid joogto ah iyo xitaa kuwa aan u dulqaadan karin dagaalka waxaan la kulmay wiil yar waxaan ugu yeeraynaa Mihari oo aan kula kulmay hoolka hotel ammaan kuma dareemayo in aan magaciisa saxda ah isticmaalno horaan waxa uu ka soo tagay meeshii aan kula kulmi lahayn oo saraakiisha booliiska ay arki lahaayeen kadib waxa uu inoo sheegay in xarun booliis ah lagu hayay muddo saacado ah kadib baaritaano aan kala sooc lahayn lagu arkay in aqoonsigiisa uu ka soo goostay gobolka Tigreega waxa uu xiran yahay funaanada dhaxanta oo madow ah maaskara ayaana qaybo badan oo wajigiisa ku daboolan waxa uu u muuqdaa mid walaacsan intii ay isku dhacyada socdeen waxa uu ku sugnaa Adigaraad oo ah magaalo ku taala waqooyiga gobolka Tigreega xilligaasi waxa uu ku tilmaamay mid naxdin lahaa kaas oo isaga iyo qoyskiisa ka gooyay caalamka intiisa kale mana aysan garanaynin waqtiga uu hubka istaagi doono waxa uu sheegay in waqtiyada qaar ay aadi jireen tuulo ku taalay meel u dhaweyd ma aanan garanaynin sida ay xaaladda isku bedelayso maalmaha xiga sidaas darteed waxaan kaxeeyey aabbahay hooyaday iyo walaalkay iga yar waxaana aadnay tuulo miyiga ku taalla oo inoo dhaweyd waxay ahayd casarkii abbaarihii 5 waxaan la lugaynay dharkii aan xirnayn oo kaliya iyo cunto yar xoogaa kadib ayaana meesha gaarnay bilooyin kadib haatan uu Addis Ababa joogo oo boqolaal meel ka soo fog gobolka Tigreega weli waxa ku jirta baqdintii habeenkii mar walba oo aan maqlo gaari weyn oo gurigayga ag maraya dhagahayga waxa ay leeyihiin madaafiic oo kale xitaa garaaca albaabka waxa uu leeyahay rasaas oo kale waxaa jirtay xilli la soo kacay walaashay oo la noolaa oo aan u sheegay in ay rasaas dhacayso waxba ma aysan jirin way adag tahay in la sharxo dareenkaasi ma cadda inta qof ee ku dhimatay dagaalka balse kumanaan qof ayaa u barakacay wadanka dariska ah ee Suudaan halka malaayiin kalena uu saameeyay hay'adda cuntada adduunka ayaa sheegtay in ilaa iyo 3 milyan oo qof ay u baahan yihiin gargaar degdeg ah waxaa jira baaqiyo isa soo taraya ee ku aadan in goobta la gaaro dawladuna waxa ay sheegaysaa in ay diyaarinayso taageerada loo baahan yahay Mituku Kasa waa madaxa gurmadka degdega ah ee dawladda 1.8 milyan oo qof oo gargaar u baahnayd oo horey u jirtay iyo howlgalka saraynta sharciga lagu soo celinayay marka uu dhacday tiradii waxaa ku soo korodhay 2.5 milyan oo muwaadiniinta dalka oo haatan la gaarsiinayo gargaar bini'aadanimo laakiin sidee ayuu noqonayaa mustaqbalka Tigray waxaan wacay Adam Keebebe oo ah falanqeeye Ethiopian ah oo ku nool Netherlands dagaalku dabcan wuu sii socon doonaa ilaa muddo xoogaa ah dawladdu si guud way uga adkaatay xoogaga TPLF dagaaladii ugu waaweynaana way ku jabisay laakiin taas macnaheeda ma aha inuu dagaalku dhamaaday sidaas darteed gobolka wuxuu sii arki doonaa qalalaase iyo isku dhacyo laba koob oo bunka adag ee Itoobiya ah oo aan dhameynay Miheri waxa ka muuqata wixii ka dhacay magaaladiisa waxa uu inoo sheegayaa in uusan kala jeclayn cid ku guuleysata dagaalka balse uu doonayo inuu arko nabad iyadoo weli qoyskiisa ay ku sugan yihiin gobolka Tigreega Cabdullaahi Jaamac aad bay u mahadsan tahay bal markaan xubintii ciyaaraha kooxda Chelsea ayaa iska xadirsay quarter finalka FA Cup-ka kadib guul ay ka gaadhay kooxda Barcelona oo hali ever uga badisay kooxda Chelsea ayaa ciyaartaasi qaybteeda hore ku soo bandhigtay ciyaar aad u hooseysay iyagoo ay markaasi ku adkayd in ay weeraro dardar leh ay ku qaadaan kooxda Barcelona dhankeeda waxay Chelsea ku qaaday weeraro halis ah kuwaas oo ahaa kuwa goos ah kuna doonayeen in ay goolal ku helaan isla markaa ay ku helaan balse waxaa la mari waayay goolayaha Chelsea daqiiqada 4 iyo 60
lixdanaad Chelsea in waxay dhalisay goolkeedii ugu horeeyay oo uu dhaliyay ciyaartooyga Tammy Abraham waa xubintii ciyaaraha oo u dambeeyay idaacaddeena subaxnimo anu Cabdiraxmaan Xaaji Adoon la socodsiinay waxaana soo saaray Xasan Cali Geeli dhamaanteen waxaan kaga tagnaa intaan ka kulmayno labada duhurnimo mar kale sida iyo nabad gelyo